السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال داوديال مركلة iyo barnaamij kale oo ka hadli doono mid ka mid ah qudaarta caanka ah ee wadankeena iyo adduunka intiisa badan sida weyn looga isticmaalo kaas oo laga yaabo in badan oo naga mid ah inay wada garanayso geedkaasina waa geedka la yiraahdo baamiyaha waxay radaan dib ugu laabano taariikhda baamiyaha waxa la sheegaa meeshii ugu horeysay ee lagu arkay inay ahayd qaaradan Afrika ee aan ku noolnahay gaar ahaan wadamada lagu arkay markaasi beerashiisa ay markii ugu horeysay lagu arkay waxay kala ahaayeen kow wadanka Ethiopia labana wadanka wuxuu ahaa Suudaan sidoo kale qaybo ka mid ah bariga dhexe ayaa la sheegaa iyaguna inay jireen meelo lagu beeray geedkaas oo dadka degan ay isticmaali jireen runtiina waxaa la sheegaa oo kale in muddadaas la isticmaalay ahayd muddo ka badan 4000 oo sano ka hor haddii ay saa ahayd baamiyaha wuxuu leeyahay fawaa'id aad u fara badan oo laga yaabo inteena badan inayna ku baraarugsaneyn fawaa'idkaas oo isugu jira dhanka caafimaadka iyo dhanka kale ee bini'aadamku baahidiisu ay ka jirto baamiyaha asal ahaan saan sheegnay waxaa lagu arkay qaaradda Afrika markii ugu horeysay iyo wadamo ka mid ah bariga dhexe hase ahaatee wadamada sida weynka lagu xusay oo lagu arkay waxay kala ahaayeen Suudaan iyo Ethiopia oo ku yaala bariga Afrika sifaha geedkan lagu yaqaano ayaa waxa ka mid ah in hal xilli oo sanadka uu baxo hal xilli oo sanadka ayuu baxaa markaasna wuxuu gaaraa 1 ilaa 2 mitir waxa kaloo caan uu ku yahay caleemo waaweyn oo ubax bixiya ubaxaasoo dhaxda ku leh cadaan wuxuu kaloo bixiyaa miro cagaar ah oo dhuudhuuban waa astaamaha lagu yaqaano geedkan haddaan u gudagalno nafaqooyinka ku jira geedkan baamiyaha la leeyahay waxaa ka mid ah vitamin C maadada vitamin C-ga waa maadada xoojisa difaaca jirka sidoo kale waxaa ku jira vitamin A oo ah isna u roon dhinaca caafimaad ahaan dhinaca caafimaadka indhaha saasoo kale waxaa ku jira vitamin K oo samaysa xinjirowga dhiigga waxaa ku jira folate vitamin B9 oo muhiim u ah hooyada uurka leh waxaa kaloo jira oo maadooyin ku jira ka mid ah maado loo yaqaano fiberka oo dheefshiidka aad ugu fiican waxaa kale oo bahalkan leeyahay ama ku jira calcium iyo magnesium kuwaas oo aad ugu fiican xagga lafaha wuxuu kaloo leeyahay oo aad ugu badan antioxidant maado la yiraahdo taas oo ka hortagta cudurrada ay keento bakteeriyada faa'iidooyinka caafimaad ee baamiyuhu leeyahay wax hadda la soo koobi kara ma haddaan si mid u sii dhaxgalno oo u sharaxno fiberka oo kale wuxuu ka qayb qaataa socodsiinta caloosha iyo dheefshiidka sidoo kale maadada sonkorowga marka laga hadlayo ama dadka qaba sonkorowga wuxuu ugu fiican yahay baamiyuhu waxaa ku jira maado dhuuqda sonkorta faraha badan ee ku jirta dhiigga saasoo kale dadka qaba wadna xanuunka wuxuu aad u yareeyaa cholesterolka wuxuu kor u qaadaa cadaadiska wuxuuna aad u yareeyaa cadaadiska dhiigga ku dhaca oo sababo cholesterolka iyo hypertension-kaba saas oo kale haweenka uurka leh aad buu ugu fiican yahay maadaama maadooyinka ku jira ay aad u anfacaan ilmaha caloosha ay ku sido hooyada difaaca jirka hore saan u sheegnay aad buu ugu fiican yahay maxaa yeelay waxa aad ugu badan vitamin C-ga iyo antioxidant labadaasi vitamin C-guna waa maado difaaca jirka xoojisa antioxidant waxay jirka ka saartaa sunta soo gashay waxayna aad ula dagaalantaa jirka inay bakteeriya ku soo badato ama ay ku beermanto fara badan isticmaalkiisa waxaa loo isticmaalaa marna raashinka ayaa lagu darsaa marna waa la shiidaa oo biyaha inta macnaha biyihiisa la cabaa aad wuxuu ugu fiican yahay marka la shiido ee biyihiisa la cabo aad waliba aad loo sii amaanaa daawo dhaqameed ahaan marka la ridqo oo la jajabiyo oo aad loo riqo wuxuu sameeyaa dheecaan dheecaankaasna qofka hadduu marsado wuxuu aad
jirka ugala dagaalamaa maqaarka waxyaabaha ku samaysma ee gabowga uu keeno oo kale aad buu saameyn ugu sameeyaa ugu fiican yahay isla markaasna wuxuu kaloo sameeyaa in uu jirka u sameeyo dhalaal qurux ah dhibaatooyinka suurtagalka ah ee baamiyaha haddii uu qofku si ka badan intii loogu talagalay u isticmaalo waxaa ka mid ah in uu dheefshiidka ku sameeyo yacni waxyaabahan maaragtay calo istaagga oo kale ama yacni khalkhal inuu geliyo dheefshiidkii waa marka xadkiisa laga badiyo laakiin sida qaalibka ama cilmi baarista ay sheegtay waxaa la isticmaalaa 2 xabo maalintii ama aad shiidato ama cunnada ku darsataba guud ahaan faa'iidada uu leeyahay wax hadda halkaan ugu soo koobi kara maaha waana shay aad iyo aad u fiican muddo horena dadkii oogii horena isticmaali jireen haddana dunida maanta meelo badan laga isticmaalo marka daawade bal adna committeega igu reeb wixii ay kula tahay fikirkaaga iyo waxa aad ka aragtay iyo haddaa hadda kahor isticmaashayba insha allah waxaan rajeynayaa muuqaalka xiga inaan saas oo kale aan kusoo gudbin doono dhir kale oo sida kan oo kale ama kuwo kale ah insha allah intaan kulan dambe yeelan doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum